لا 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 ما أنت وحنا أصلا حرتي عالم كي يقبلوك كل مرة عوالين عرك مرة وعمهم وحنا أصلا حرتي وهالكس أوجيا كده هيا ما ضح مالك الرسول صلاح مالها يسمعنا هذا ما ضح مالك الرسول صار لها مجرو وحنا أصلا حرتي إنا إذا thank you so much dadka aan ka beermay ma sha Allah aad u mahadsantihiin labada bilood aan ku codsaday guud inay u gaarsiisanteen 10k subscribe codka xataa maanta hadalku ay gudmeen kasoo inay u gaarsiiseen laba toddobaad ka yarna ay u gaarsiiseen aad u mahadsantihiin ma sha Allah tabarakallah dad leeli karmatiidin intaas in ka badan waxay idin ka rajeynaa labadii sano oo halkii sano oo labada bilood ka dhinaan wali way taaganta ma labada bilood kalena 10 kun ay u gaarsiiseen idin ka rajeynaa insha Allah aad u mahadsantihiin aad ugu mahadsantihiin wax kale idin dhama lahan shukran jazaakum allah khayr qof kasto subscribe ii saaray aad u mahadsanyahay kii hadda kadib ii saaranahay waxa ka ma dhinta Soomaaliya gurigeena shan qof ku wala nool shanta qof ku nool jak la iigu soo siino anna ku farxa adina hee oo kugu soo duceena dhamaantiina thank you aad leeyahay بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا سلامي دماء الله كحرة channel كي ملك استأذنك كجوكتين حنيرة شيني خير عافيمات فرحات بش إبراقنا كل وقت إن شاء الله أنت نحن نوصل إلى عافيمات رمسية أنت عافيمات قبل إلى وسيسية دي أنت اللي ما طلعوا نحرسته أنت نالنا إلى دم وذا العف فيديو قام حقوق طلق لي مهد علين إيو شاكي رقام مركب قد حقوق مهد علين لما dadka igu xiran ee channel كي igu xiran sida sharafta quruxda qiimaha karaamada leh commentyadii ugu soo qoro in fuliyo codsigii ahaa laba bilood ay iga dhiman halka sane teega i gaarsiin aad u mahadsantiin waxaan ku faraxsanahay idoo labada biloodna la gaarin ina 10k subscribe xiray shukran intaas yaa laga helaa walaal Soomaaliyeed maaho aad u wada mahadsantiin sidee u dhintiin waxaad leeyahay Allah idin sharfo Allah idin karaameeyo thank you so much intaas in ka badan ina gaarsiisin waa idinka filaa haduu Ilaahay yiraahdo mar walba iyo mar kale iyo mar saddexaad mar afraadna ma ka daala ina idin dhaho shukran jazaakum allah khayr maxaa yeelay qof walaalka inta codsi u qoratid u dirsatid haduu codsigaada uu ka soo jawaabo waliba sida ugu dhaqsiyaha badan midaas waxa lagu tilmaami karaa qalbi wanaagsanaan iyo ina qofkii ajiibtay sama marka amahadsantiin aad u mahadsantiin insha Allah waxaan idin rajeynayaa dhamaantiin inay wada guuleysatiin yani inay guusha arabo Ilaahay inuu gaarsiiyo insha Allah hal kalena way jirtaa aan rabo inaan idin raacsado waxa jirtay gabadha la dhimato youtuberada ilaa la xariisto hibadekan hiba Allah u naxariisto Ilaahay qabrigeeda ha u waasiyo video ooga hadlay hore soo galay waadna aragtay intiin badan waxaan arkay video gabadhaas ee YouTube-keeda shalay markay dhimanaysay Allah u naxariistay 27.7 ahaa hadda aan waqtigan aan la hadlay video-ga aan duubayna 32,000 iyo waliba jarjar oo maraya Soomaalida adduunka waxay ugu jeclaan jirtay markay video soo duubto walba dhigi jirtay in gaarsiiyo subscribe ka rabay gaarsiiyo iga farxiyo videoyada daawada videoyada qaar maxaa arkay 50,000 60,000 70,000 20,000 gaaray oo kun aha qofku markuu dhinto hadaa Soomaalina inaan orodno oo YouTube-kiisa tagno ama soo daawano waa laga fiican yahay ama aan subscribe saarno hadda gabadhaas laga yaabo ninkeeda ku soo shaqeysto ama qof ku soo shaqeysto way anficay laakiin qofku markuu nool yahay oo xayiga yahay oo saar in soo fadhiya fiican Soomaha in la garab istaago Soomaaliya tan anaga waxaan qanaa qofku muu dhintaa ii raadi meeshuu ka hadli jiray meeshuu ka soo muuqan jiray igu raadi adheena fahmaysid saas darteed marka Soomaali Maxamed Ilaahay inta ka cabsateen qofka intuu nool yahay walaalkiin niyada u dhisa wuxuu idin ka codsanayaan u sameeya aad u wada mahadsantiin waa idinkaga mahadcelinaya dhamaantiina guusha aad gaarsiisin gabadhaas way dhimatay Allah u naxariisto laakiinse markay nooleed waxa la idinka rabaa intaas in ka badan u sameeysin anaga iyo inta hadda ku jirto social media waxa rajeynaya qof walba meeshii loo soo jiro Ilaahay iyo qofka maalinta dhiman doona qofkan ku codsado walaalkiina ama soo fadhiisto intuu nool yahay waxa uu qaban kartiin u qabta markuu dhinta kadib waxa taraysa malahan ina subscribe u saartid ina ka shaakeysid ama ka faalootid ina dhahdid wuu fiicnaa markuu qofka nool yahay fiicnaa dhiirigelisid garab istaagtid dhahdid qofkan walaalkay wuxuu iga codsaday maanta miyaha aan u sameeyo aad u wada mahadsantiin dhamaantiina sheekada yarta waxa idin galaa marka gabar oo qisooyinkay qiso kamid ah fiirsatay ee isoo ka jirtay aan soo galiyay oo ahayd jaceelka social media oo fashil ku dhamaaday sheekadaas waxa ka soo jawaabtay oo isoo sheegtay gabar kamid ah asxaabtayda dadka daawado taageero ayaa waxa isoo sheegtay sheekadaas ay isla sheekada naftirkeeda oo iyada ay ku dhacday
so waxay tiri gabadhan qisada waxay ku bilowday waxaa la isoo guuriyay tirahday markii la aroosay kadib waxaan la degay tirahday sodohdayda iyo dumaashiyaalkay gabdhaha ay qabaan aad soo degnay waxay noqdeen family wada degan oo hal meel ku wada nool inta badan waa taqaaniin dadka niman waxay jir hooyooyinkooda la soo dejiyay xaasaskooda gabadhan waxay tiri markaan soo degnay tir sodohday iyo dumaashiyaalka gabdhaha ay qabeen gabdhihii dumaashiyaalkay waxay sameynayaan tir ana ay ximinayaan ana ay ficlaayaan ana ay fiirinayaan waxay dhahayaan tiri marka mid walba waxay leedahay tiri wariyaan hebla ii calajabi cadowga ha ii jabin markay arkaan aniga waxaa la sameynaya tiri ninkaa banaanka lagu shushuminaa waa la isqalqaan qabsanaa maanta waa la farciyaara inta aniga ninkay waxay tiri ma isla hadalno wax ma isku darsano dad kale xishoonayo waxaan tiri qof aad u xishood badan ay tiri oo dadka qaar waxay jiraan inta tarbiyada dhaqanka lagu soo abaabiye taaba ana fiican taaba ina ninkaada iyo adiga gudigiin waxa ku subsanaysa idinka ay laakiin banaanka dadka bulshada mujtamac markaydan arkayaan waliba qaasatan xididka markaydan arkayaan ma fiicna inay isku dhadhajisida ama isku nana kabaysid ma sida adii qof oo lagaa qaadanayo lagaa wadanayo camal oo kaleeto oo maanta ay kugu cusub tahay marka waxay tiri waxay sameeyaan maanta 12 waxaa laga shaqeynaa tiri waxaas indhaha markii la saaro waxaa la bilaabay tiri romantic waxba ka jirino afka hore ay heedraad caawa casho iyo wad maanta meel hebel igu soo wareeji qadada igee baba cirkaasi caadkaas la ismarnahay tiri ana waxay dhahday ninkayga casho ima geeyo ima soo wareejiyo meel ima wado gurigaas ma dhaafay tirada sidiisa ugu deganeen tiri ilmaha ku dhalamkaas waxa la dhahay tiri cunugay koodan ka dhalo waxa la dhahay tiri qofkan see cunug looga dhalo qofkan ayada cunug ma dhalinba qofka noocaan oo saa u dhaqmaysa ma ilmo laga dhali karaa qofkan aan waxba ka ogeyn nolosha qofkan aan horumarka aqoonin qofkan aan romantic ahayn maalinkaas 12 waxay tirahday dhalato dhamaatay shaqo kale iyo lama hayo tiri iyo camal kaleeto oo aan ka ahayn tirahday romantic aniga la aqaana iyo dadkan ribaadiyaasha ah oo isqabo meesha noo degan iyo in ana leeyahay xanday tiri ana leeyahay baalkay sodohdii lagama xishoonayo tirahdo oo maamada dhameed cid horteeda wax walba lagu sameeyay horteeda wax walba lagu yeelay tirahday bas waxa dhacday tiri maqsadada waxa ka waran ka sheekay isu sheego isu gaabis laakiin ha ahaatee waxay ka duulaysaa inay runtahay jaceelka social media ama dadka hortooda social media waxay tahay dadka hortooda la isku tuso la dhaqo qof kale ila arag waxa leeyahay jiliinka wax walba jiliin ah waa iska filmka markii la jilay hindida waa aragtay filmaan soo jilaan Hollywoodka filmaan badan soo jilaa sama dadka filmkaas jiro waxay ku jilaan jaceyl adiga daarta qaarkood dadka caloolka jilicsan la ilmeynayaan oo lama xaboonayaan ku soo jilaan laakiin waxaas wax jira ma aha waa jiliin la marooyo dadkaas waxa laga yaabaa adduunka ay isugu nicib yihiin shaqadaas iyo lacagtaas bas ay fiirsanayaan marka aad gurigaaga iyo noloshaada dad jiliin ka dhigtid wixii jiliin ah way dhamaanayaan taas waa xaqiiqo qof walba uu soo ogaaday qof walba hadda kadib aad ogaanin oo arki karo waxay tiri jiliinkaas sidii loo waday oo loo wada waxaa dhacday tirahday gabdhihii saddex ay ahaayeen maalinba mid la furaa tiri sanadba mid baa la furaa hadda oo la joogo oo justan la joogo 2020 sano kadib gabadhii la dhihi jiray waa reebaadiyo waa jaahilad romantic ma taqaano ilmaha sida looga dhalay lama oga ninkii asaga ahaa ay waxay u haysaa 6 cunug maasha Allah ilaaha u barakay ilmaheeda gabdhihii ayaga ahaa hal mid oo la qabo maanta ku jiro oo nimanka ayaga ay qabaan mid walba 3 4 5 6 nin oo kaleeto ayaa soo furay ay isku soo wada martay taas marka waxay ku cadeynaysaa ay gabadhan igu soo sheegtay sheekadana ay iiga cadeynaysaa ay xaqiiqinaysaa oo runta igu la taakiidinaysaa wixii jiliin ku bilowda inay jiliin ku dhamaanayaan markasta waxaan leeyahay noloshiina reerihiina jaceelkiina caruurtiina guurkiina quruxda badan ha ka dhigana jiliin waliga hadda niyadaada gelisid qof ba meesha maraya qofkan tusi in aad ninka isjeceshihiin qof ba halkan taagan qofkan tusi adiga qofka ina wax ka dhaxeeyaan qof ba halkan fiirnay adiga qofkan tusi inaad tihiin laba qof oo israbto romantic hada waxaas niyadaada waliga galisid waliga horumar ma gaaraysid guusha rabtid ma gaaraysid horumarka u socotidna indhaha ma ka xagaysid sababtu maxay tahay guusha iyo horumarka iyo farxadda iyo nolosha quruxda badan oo lagu sheegayo waa sir ma aha wax public ah qofkan aad istusaysid muxuu ku qaban karaa waa asam ku darin ninka asam ku keenin ma ku dooqin kuma biilo wax kuma siina wax kuma darsanay kaliya wuxuu ku sameeyay inuu ku fiiro kaasi gudbay hatta even ay dhacdana noloshaada ay qurux badneed hatta qofkaas inuu ka ilaysta hatta macquul adiga tustus adees ma dadka inay ka ilaystaan waxa macquul ay qura afka kaamiro wajaan kastaan dadka Soomaalida inta badan ma sha Allah waa dhibaysaa dadka wax walba ila ilaacilihiin ma sha Allah dadku ku yarta qofku ma lagu dhahay ma sha Allah ma lagu balkeenay ma lagu daray waxa lagu leeyahay cuud billaah ma sha Allah rajib inta badan waxa arkay dad dhahay tacsida ma sha Allah ee guurkan dhahay ha waaw dhahay wala guursa waaw ilayhi qofku ma inta hebelo adoga
marka walaalaha qaaliga ah mar walba nolosha sirta nolosha waa qarsoodi sirta nolosha waxay ku jirtaa in la qariyo nolosha quruxdeeda iyo qiimaheeda waxay la ku jirtaa in aad qarsatid soojkaaga caruurtaada iyo reerkaaga iyo familygaaga aad ka dhigin public in aad ugu damahsantiin hada video waan ka hesheen waxaan ka codsanayaa leeg isart wixii fikirkaaga comment igula soo wadaagtid insha Allah in qof walbana intuu nool yahay horumarka iyo dadaalka uu rabo inaad gaarsiisina idinka wada rajeynaya hal subscribe walaalka u sarto waxba kaama dhinto inta bari markuu dhinto kadib aad channelkiisa raadineeda u saar lahayd shukran